أولا إله ما هذا سكله waxaan u mahadcelinayaa saaxiibadayda agaasimayaasha guud ee halkan fadhiya kulankan inagala soo qayb galay taliyayaasha iyo saraakiisha ciidanka booliska agaasimaha waxyaha qorsheynta ee laamaha kala duwan ee dawladda dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa awalan waan idinku soo dhaweynayaa kulankan runtii farxad bay anaga noo tahay ka wasaaradda qorsheyn ahaan inaan nagala soo qayb gashaan kulanada noocan oo kale ah maadaama oo wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranku ay qaranka uga mas'uul tahay qorshayaasha dhaadheer iyo kuwa dhowdhowga ee qaranku leeyahay inay jahayso isku dubarido isla markaana ay waxyaha kala duwan ee laamaha dawladda ka kooban yihiin ay ka wada shaqeeyaan runtii wada shaqeyn fiican baan la leedahay wada shaqeynta waa idinka mahadcelinayna inta marka laga yimaado wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranku iyadoo ka duuleysa mandate-keeda waxa ay bilihii u dambeeyay ay ka shaqeynaysay in qorshihii horumarinta qaranka ee saddexaad la prioritize gareeyo isla markaana la review gareeyo labadii san iyo barkii tagay maxay noo qabsoomay labada san iyo barka hadhay maxaynu qaban karaynaa horta intaas ayaa kulanada noocan idaaran yihiin maanta waxaan u fadhinaa sectorkii governance-ka oo runtii ah sectorada ugu ballaaran marka la joogo qorshaha horumarinta qaranka oo ay ku jiraan intaasoo institution iyo intaasoo subsector runtii qorshaha horumarinta qarankuna ma aha wax wasaaradda qorsheyntu ay kaligeed ka shaqeyn karto cidda la doonayo inay implement garayso ee la doonayo inay fulisaan waxa weeye laamaha kala duwan ee dawladda annagu roolkayga waxa weeye inaan idinku coordinate gareyno idinku dabagalno mooye laakiin inaa idinku implement garaysaan waa shaqada laamaha kala duwan ee dawladda runtii si fiican baa noola shaqeynaysay muddooyinkii u dambeeyey qorshaha horumarinta qaranku dee wuxuu soo maray marxalado kala duwan kanaynu ku jirnaa imika waa kii saddexaad waxaanu soo bilaabnay 2023 waxaanu dhamaanay 2027 marka dawladdeena cusub markii ay timid wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranku waxay qaadatay assignment ah bal in qorshihii horumarinta qaranka iyo political manifesto-dii dawladda cusub in la iswaafajiyo wasaaraddu iyadoo ka duuleysa hawlaha waxay muddooyinkii u dambeeyayba ka shaqeynaysay in la iswaafajiyo labada hawlood waxaana noo soo baxay markii aan hawshii dhammaynay in boqolkiiba 85 ay ismaac gareynayaan qorshihii horumarinta qaranka iyo political manifesto-dii dawladda cusub marka ay noqotay in labada sano iyo barka hadhay aynu la nimaadno qorshayaal aan ahayn too ambitious ama aan la gaari karayn marka waxaynu qaban karayno labadaas sano iyo barka hadhay oo aynu muddooyinka aynu ku implement gareyn karayno inaynu la nimaadno oo innagana aan culays ugu ahayn waayo haddii aynu wax badan balan garayno oo ay fuli waayaan dee waxay ku soo noqonaysaa un dee dawladnimadeena ay ku soo noqonaysaa marka bal inta kulankeenu socdo waxaan idiin soo bandhigi doonaa sectorkan governance-ka waxyaabihii priorities-ka ah ee labada sano iyo barka hadhay aynu doonayno inaynu implement garayno idinkaana idinka timid wasaaradda qorsheyntu keligeed may ka shaqeyn hawshan laakiin waxaanu muddooyinka u dambeeyayba la tashanayno oo aan hawshaa kala shaqeynayno waxyaha qorsheynaha ee laamaha kala duwan ee dawladda waxaana naga go-aan mar walbaba haddaan wasaaradda qorsheynta nahay in waxyaha kala duwan ee wasaaradda laamaha qorsheynta inaanu si dhow la shaqeyno aqoontooda dhisno wixii capacity ama xirfad ay u baahan yihiin inaanu si dhow wada shaqeyn doono haddii ilaahay ka dhigo si qorshayaasha iyo yoolalka qaranka leeyihiin ay u fulaan dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin waa idin soo dhaweynayaa kulanka intuu socdo waa kulan discussion ah oo aynu doonayno inaynu ku discuss garayno bal waxyaabaha aynu doonayno inaynu prioritize garno laba sano iyo barka hadhay marka la joogo sectorkan governance-ka aad iyo aad baa u mahadsantihiin aadna waxaan idinka mahadcelinayaa kasoo qaybgalkiinan wasaaradda qorsheyntuna haddii ay marar badan idin yeedho oo ay invitationiskeedu ku badiso macnaheedu waxa weeye waxun baynu saxaynaayo waxaynu doonaynaa qorshayaasha horumarinta qaranka inay noo fulaan oo ay noqdaan qaar aynu gaadhno haddii ilaahay ka dhigo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kula qabo noo fuliyo aad iyo aad baa mahadsantihiin agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta